كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. dunida waxa kor saaran oo dhan way baaba'ayaan ilaa wajiga rabbiga mooye ee weynida iyo karaamada u saaxiibka ah. waa dhab oo dhammaystiran Dheeman TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. war soo dhawaada jaalayaal iyo johradooyin intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto annagana ha nooga daba naxariistee. aad baad u mahadsantihiin hor iyo horaan. waxaan idinka mahad celinayaa sidaad u daawataan fiidiyoyadayda, like-ta, share-ta iyo commentigana aad u raacisaan. war jaalayaal iyo johradooyin maanta waxaan idin hayaa sheeko cajiib ah, laakiin taanan sheekada guda galin waxaan idin leeyahay like-ta, subscribe-ta, commentiga, share-ka waxaas waa shaqadiina. gurubyada Facebook iyo WhatsApp-ka kullu ku share gareeya, midna yaan laga tagin. mar labaad waxaan idin leeyahay waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV. soo dhawaada daawadayaal meel kasta dunida daafeeda ka joogtaan. maanta waxaan idin hayaa sheeko cajiibkeeda wadata. jaalayaal iyo johradooyin waxa ay soo gaartay in wadanka Faransiiska magaalada Paris baa la dhahaa, laakiin Soomaalidu Paris bay u naqaan. magaalada Paris ee Faransiiska supermarket ku yaalo weyn oo laga adeegto. supermarketyadu de badankan waa garanayna waa dukaamadan waaweyn ee laga adeegto. baa waxa shaqo ka heshay gabar asalkeedu wadanka Jazaa'ir ka soo jeeda. wadamadan waxa weeye ku yaal Morocco iyo waxan waa sidii Liibiya iyo waxa la yiraahdaa waqooyiga Afrika. ma garatay waqooyiga Afrika baa la yiraahdaa. North Africadaas bay ka tagtay, Jazaa'ir bay ka tagtay. kadibna Faransiiska Jazaa'ir laftirkeedana Faransiis baa gumeystay oo qada Faransiiska lagaga hadlaa, laakiin Carabi waa u badan. luqadda koowaad ee Afrika lagaga hadlo ugu horeyso waa Carabi, koos wadamadaas oo dhan Carabi ku hadlaan. gabadha Jazaa'ir ka dhalatay waxay tagtay magaalada Paris. shaqay ka heshay supermarket bay shaqo ka heshay. supermarketkii bay shaqo ka bilowday. gabadha waxay counter-ku dadkan fariista meesha computer-ku yaala markuu qofka macmiilka ah uu soo qaato alaabta counter-ku keenaya. markuu counter-ka keeno waxa qofka cashier-ka ee counter-ka fadhiya baa wuxuu ku marinayaa bahalka siibka ah, uu marinayaa. kadibna waxa uu soo baxay qiimihii shaygu ahaa. marka aduu yaalan warku gudaalan gabadha Jazaa'iriyaanka ahayd supermarket Paris ku yaal bay shaqo ka heshay. counter-kay fariisatay, customer-ka u shaqaynaysay. gabadhii Jazaa'ir waa wadan islaam sidaynu ognahay, gabadhuna islaam bay ahayd. marka waxa dhacday gabadhii diinta islaamka waa ka tagtay, timihii waa qaawisatay. tawana iska carab qurux badan oo waa la cadaanka dhaqso horay looga garan maayo. luqadii Faransiiska ay garanaysay ma ahane kii wax baratay caadigeeda Paris lahjadii Paris laga hadlaayay baratay. maxaa dhacay? gabadhii meesha bay shaqo ka heshay, Paris bay iska deganayd. maalmaha kamid ah baa wax dhacday gabar Faransiis ah oo asalkeedu Faransiis yahay, oo reer Faransiis ah, oo qolada boqortooyada Faransiiska ka soo jeeda waliba, oo muslim ah, oo diinta islaamka qaadatay, oo xijaaban, oo indha shareeran baa supermarket-ka soo gashay. watilka al-ayaamu nadaawilaa bayna an-naas baa ilaahay waa maalmo aan dadka isku bedbedelayno. waxaan soo xasuustaa hadal uu yiri boqorradii Faransiiska mid kamid ah waxa la yiraahdaa Louis sagaalaad ee Faransiiska soo maray. sida Masar ay u lahayd nimankii qabdiyiintu ay u lahaayeen faraacinada, fircoonkii koowaad, fircoonkii labaad, fircoonna ay u lahaayeen. bay kuwaan wuxuu u lahaayeen Louisyo. marar badanna taariikhda waa ku aragtaan hal nin baa lagu soo celcelinaya. waxa la sheegaa taariikhda Soomaaliya
muddo kahor boqortooyin ka jiray baydari in la oran jiray baydari waxaan xasuusanaa Soomaaliya baydarigaas jiray waxaan xasuusanaa Ethiopia markii Nabi Maxamed iyo saxaabada nabigu u soo diray alayhi salaatu wasalaam u soo diray Najaashi baa joogay ma xasuusto Najaashigu laakiin Najaashigu koowaad Najaashiga labaad sidaas weeye marka Faransiiska waxaan soo xasuustay Louis-kii sagaalaad hadal uu yiri hadalkaas wuxuu yiri inaan wadamada Sacuudiga inaan gantaal ku garaacno yiri inaan Sacuudi Arabiya gantaal ku garaacno oo gantaalo ku garaacno gantaalo ku garaacno gantaalka wad garanaysaan gantaalo iyo hub culus aan ku garaacno oo Sacuudiga ku garaacno islaamka gantaalo ku garaacno islaamku dhan buu weeday laakiin Sacuudiga tusaale u soo qaadanay waxa ka fiican buu yiri oo ka fiican anu ka jeclaa habbu ilaya waxaan ka jeclahay yiri in hal gabar oo islaam ah xijaabka laga dhigo in hal gabar oo islaam ah xijaabka laga dhigo taasaan anu ka jeclaan lahaa ma garatay marka riyadiisa isaga marka uma rimoobin laakiin hadda uu rumooday san mar dhow way dhacday qisadan aan ka sheekaynayo gabadhii Faransiiska u dhalatay Paris u dhalatay reer Faransa ahayd reer Paris ahayd ma garatay luqadii Faransiiska oo lahjadii ku hadlaysa dadka luqadda laha ku hadlaysa baa soo gashay supermarketkii hadday supermarketkii soo gashay alaabay soo qaadatay waxay u koontay gabadhii counterka fadhiyo Jazaa'iriyaanka ahayd oo markeedii horena islaamka ahayd tan Faransiiska ahayd waa xijaabanta waa indha jareeranta waa qam meelna lagama arko markaas waxa ku tiri cod yar bay ku hadashay gabadha Faransiiska waa cod yar ku hadashay waxay tiri alaabatan iga gad hadda cod yar ku hadashay yani hadalkeedii bay hoos u dhigtay ilaahay amarkii wax dhacday gabadhii asalkeedu islaamka ahayd oo reer Jazaa'ir oo counterka fadhiday ma garanayso iyada qofka wuxuu yahay laakiin wuxuu maleynaysaa dadka Suuriya iyo islaamka ka soo qaxayo intay Faransiiska muddo joogan luqadii barteeno islaamka abayadu u maleynaysaa gabadhii haday hadalka hoos u dhigtay alaabtan iga gad ama waxan iga qabo tii Jazaa'iriyaanka counterka fadhiday wax tiri intay qaylisay oo codkada kor u qaaday ba waxay tiri wadankiini waa soo qarxiseen wadankiini waa soo baabi'iseen islaam baad sheeganaysaan wadankaygii baan idinku nimi wadankaygii baan noogu timaadeen waa idin soo dhaweynay adiguna sidaa rabtid baad u dhaqmaysaa warafiyo shimbiro wari sumahaya maan maqladiri warafiyo shimbiro wari sumahayaan gabadhii Faransiiska ahayd oo reer Faransa ah diinta islaamka qaadatay way fahantay naagtan hadalkeeda wixii ka fahantay inay asalkeedu aysan u dhalan laftirkeedu wadanka Faransiiska wadan walbana markii la tago waa sida dadka ka sheegta dadka wadanka ku cusub ka sheegta waa dadkan u dhalan wiligay ma arag nin baganda ah oo dadka localka degan ah wili ma arag anigu Cabdikhaaliqaan nin le ana Kampala iska leh wadanka ay u tin laakiin dadka ka sheegta waa dadka gobolada fogfog ka yimi 300 kilomitir 500 kilomitir ninka yimi oo kuleeyahay anu Uganda isbaa wadanku ka sheegana waa nin ciidan la joogaba aan lahayn oo asalkiisu Suudaaniis yahay ba ka sheeganay marka wadan walbana waa sida dadka ku yimaada ba dadka ka sheegta marka waxa dhacday way fahantay naagtan Faransiiska leen wadankeedii ku dhalatay wax badan oo taariikhi ogtahay lahjadeeda ka garatay inay tan laftirkooda soo galooti tahay aysan wadanka u dhalan intay xanaaqday indha shareerkiiba iska furtay gabadhii Paris ka ahayd oo islaamka ahayd oo diinta islaamka qaadatay indha shareerkiiba iska furtay tii way naxday marka wajigeeda garatay inay dadku is garanayaan inay Faransiis tahay markaas tira anu wadankan u dhashay magaaladan ku dhashay abka inay hebel baa lahay wadankeygii ciidaydu aan joogaa aan ku noolaa magar diinta islaamkan ku qanco qaatay wax ka wanaagsan ma jiraan laakiin adigu soo galooti baata intaad ka timaad diintaada iyo dhaqankaaga ka tagtay markaas aniga rabtaa inay iwaaniso wax ii sheegtid timeeshi bay ku ceebowday dadkii customerka oo meesha wax ka gadanaya ku soo jeestay hadalkii baa ku dhagay hadalkii baa ka soo bixi waayay tii counterka fadhiday wixii baa shaqadii laga ruqdeeyay la baalki gareeyay dhibaato kala kulantay sheekadaas waa sheeko xaqiiqa oo dhacday waxaan rabaa inaan description-ka idin kula waraago meesha reference-ga iyo sheekada loo celinayo waa sheeko dhab ah oo xaqiiqo dhacday way marka ilaahay horta inoo soo hanuuniyo dad badan oo Soomaalideena horta dhaqankii waa ka tageen taas inay ku muranno hadda adoo i daawanayo anoo hadlaaya inaynu ku muranno ma aha
dhaqankii ma laga tagay mise waa la haystaa taa labadeenu maanta ka doodi mayno laakiin diintii baa farahu ka haystaa aan maqli jiray yani jirkii inta kale oo dhan waa ka soo dhamaatay faruhu saa ugu haystaa way diintii baa faraha lagu haystaa in ilaahay u soo gargaaro dadka u micino ma ahane khatar baa lagu jira dad badan diintu waa ka baxeen waa hayn waayeen waa sii daayeen saas waa hayn waayeen waa ku gubtay waa iska sii daayeen ma garata inta kalena faraha ku haysataa Soomaalideena way wadamada kale soo galooti oo ku noqday waxaan u malaynaa wadanka ugu badan oo dadkiisu ka tagana wadamo kala galeen inuu Soomaaliya yahay Soomaalida population-koodu ay yar yahay laakiin sida adduunka ugu faafeen oo wadan walba u joogaan waxaan u malaynaa waa wadanka ugu soo galootiga badan marka ma qisadaas waa qisad dhacday xaqiiqa Soomaaliyay marka wax loo baahan in dhaqankeena ilaalino waa waxaan aayada u soo qaatay ilaahay leeyahay waxa adduunka kor saaran oo dhan waa baaba'aya wajiga ilaahay baa soo haraayo oo karaamada iyo weynida saaxiibka u leh oo xaq u leh weynida iyo karaamada wajiga ilaahay iyo weynida iyo karaamada leh baa soo haray moohani inta kale waxa dunida kor saaran waa baaba'aya ma garatay marka Soomaaliya diinteena iyo dhaqankeena waa inaynu haysano wax diinta islaamka ka fiican ma jiro inay gabar xijaaban tahay oo asuran tahay wax uga fiican ma jiro waxa loo soo qaataa tusaale laba moos dubkii laga fiiqay oo suuqa yaal iyo moos dubkiisi ku xiran yahay oo suuqa yaal keeba soo gadan lahayd damiti dubkiisi ku xiran yahay hawaysanon wili waxba aysan bitaabanba xirande oo jiqa inaad soo qaadanaysa mid duuban dubkii laga qaaday soo daawanaysa gabadha xijaabana saas ka dhigantahay gabadha xijaabana saas ka dhigantahay mid Uganda soo Kristaana maalin wuxuu yiri wax raba gabar Soomaaliya inaan guursado gabar Soomaaliya ii soo raadi waa ogahay naagaha Soomaalida lacag badan baa laga bixiyaa waa qaali marka soo ma islaam baa tahay yirino maya islaam ma ihi laakiin hadaan rabo islaamku waa qaadanayo laakiin islaam ma ihi soo ku yiri maxaa u rabtaa gabar islaam inaad guursato adoo islaam aan ahayn markaas wuxuu yiri waxaan malayntan waa sheeka bonus bonus hadaan ku soo darana comment-gi iyo like-ti bonus-ka iyo share-ti bonus-ka idinkana waa leeyin ka sugaya ninka wuxuu ugu yiri baalinaan jawlo waa kalmad af Ugandaysa macnaheedu waxay tahay iimaan bay leeyihiin faith in jawlo waa faith waa iimaan gabdhaha Soomaalida ab yiri iimaan bay leeyihiin maxaa dhacay waa ku tiri waa ku iri oo ku tiri iimaan bay leeyihiin wixii waa xijaaban yihiin waa asturan yihiin ma garat war islaamku nimco weeye waa loo ogyahay gaali muslimba waa ogyahay islaamku inuu nimco yahay in la isdaahiriyo la isdaqo sooma maqal sheekadii ninkii koronaha maxaa la yiraahdaa marka hadda korona soo baxo faraxal kala soo rogay in la faraxashto oo faraha la dhaqdo la soo rogay ninka cadaanka oo yiri anigu sanad iyo 6 bilood ma faraxalan buu yiri maanta ay ugu horeysa meel kale maxaa laga sugayaa nin aan sanad iyo 6 bilood aan faraxalan meel kale maxaa qabo Mareykan oo qabowgu ku nool yahay haduu qoysanaayo wax yar buu biyo ismarmarinaya haduu cunaayo qaad ku cunaya sanad iyo 6 bilood ma faraxalan buu yiri ninka sheekadiisa waa la wadiyay islaamku wax ka fiican wax ka fiican lama heli karo gaaladu xitaa waa ogtahay miyaad aragteen 44 madaxweyne baa Mareykan soo maray ma garatay 44 mid naag Mareykanko naag u talinayso ay soo martay maxaa la yiraahdaa madaxweyne dumar miya aragtay ma jiro waa ogyiin hadda maalinta dhawaad Hillary Clinton baa ku guuleysatay qof walbana waa ogyahay Trump baa ku shubtay codkii Mareykanku wuxuu leeyahay niman xildhibaan ah oo halkooda cod oo 100 milyan u dhigmo dad ah nimankaas ugu shubay Trump sidaas Trump ku soo baxay Trump shacab doortay ma jiro shacab doortay ma jiro degmo xamar kamid ah inta ku nool wax ka badan wax la eg baa doortay Trump inta kale naagtiba doortay Hillary Clinton haddana Mareykanku waa kala wareejiyeen 433 shaxdi ka dhigeen marka barnaamijka waa ku dheeraad waxaan barnaamijkaas aad bixiisa u leeyahay insha Allah document waan ka soo diyaarinaya waxaan document ka soo diyaarinaya dagaalka ee reer galbeedku ku hayaan wadamada islaamka gaar ahaan Soomaalideena islaamka kala xagga ii dhigo Soomaalideeni bay dhaqankeena iyo diintooda reer galbeedku wax ku hayaan dagaal aan inaba caadi ahayn ma garatay marka khayr baan idin rajaynaya inaad share gareysaan baan idin xasuusinaya mar labaad hadaad nagu cusub tahay subscribe ta dac ku siiso maxaa la yiraahdaa Facebook aad ku sii share garayso WhatsApp aad ku share garayso waxaan idin leeyahay mar labaad intaynu video kan oo kale ku kulmayno salaamaat min kulli aafat waadaq oo dhammaystiran Deeman TV waadaq oo dhammaystiran Deeman TV
waa dhab waa dhag oo dhammaystiran dheeman TV